فريتون كاتكو سلامتين والدعاء إلهينا هينو أقبلوا فنتي شركا وانا لغا تاريخي وانا لغا شيكي تما انت انا الشركة أسوسي قدين سعيد أديركي سعيد بدين ومركا ورطان لها أدير بحكمه مدرسان دين تدرسوا بين هالكيسيان بهاي تسلم بوا كسر يا مرد صلاة دين تيان الله هذا سفي عنو دين سوتش ويدلكو تاريخ بدن هاي واحد بدن بينه والرمي مركا لقيته ما أنت واحد نكود هلا رجع يقول لبدي كلمة صدق دي السلطان يقول يرادين يا وحشة شدي يا عبشدي هل كاسي كودماي هل كاسي كودماي وحكلته محادنا يوحي نكي وحصوصا يا هدير رب حكم يسيدي وحلو ولا قبصا لها إلا قد بين غنصا وهدير رب حكم يو دانت الله قرطو الله وضح الله فلله الحمد هدي أينو قراناي inaynu isu nimaadno oo danteena ka wada hadalno oo turxaan saar samayno oo nabadgelyo abuuro wixii qabyo ka ah nabadgelyada gobolkaasna aynu dhammaystirno inta ay nabadgelyo darro jirto tuulo dalka kamid ah haday ka jirto laba beelood oo kooban oo meel hoose haday ka jirto dhibaato iyo dhaawac iyo dhimasho inoo dhan wixii halkaa qabyo ka ah haddaynu garanay wixii horena inaynu ka qabanay waxa horena inaynu gebagabayno oo iyadoo loo dhan yahay ay tahay dantu inaynu iska gebagabayno nabadgeliyo iyo turxaan la-aan aan ka dhigno meelaha aynu rabno inayn ka duulaa waa nabadgelyadii waxa weeye gobolkan haddii ammaan badan la sheegay oo layi markay isu yimaadaan waxqabadkooda dowladnimo wax ka yar kama dhashaan haddii la yidhi haddii wax badan la soo qabtay maantana waa qabyo oo hawshi waa inoo taallaa ragalow hawshan halkan hadda isugu nimi marka aynu ka wada hadlano danta labada qoys qura ka hadli maynee danta Somaliland oo dhan baynu ka wada hadlanaa danta Somaliland oo dhan baynu ka wada hadlanaa haddii sidii horeeto aynu garanay ahayd caradii iyo wixii khasaare mooyaane wax faa'iido inoo lahayd ma jirin isla garanay waayeelkeeni sidii buu tiraaxay shirkan aynu u qabsanay xaladhaleen ka noqonadaan nidhi cafi iyo saamax iyo xaladhale bay inaga tahay dhammaanteen ta aynu inaw ka shaqaynanaana haddii wax inaga qariban yihiin gobol kastaba ku doonaba ha noqdee waxaynu halkan u fadhinaa danta iyo masaalixa Somaliland baynu fadhinaa oo aynu ka bilowno guryeena oo aynu ku xajino goboladayna xiga hadduu soo yahay haddii uu yahay haddii rabbi xugmayo xeebaha iyo ay tahay hadday Hargeysa tahay halkaa waxaynu ka bilownay inaynu Somaliland gaadhnaynu ku rajo weynahay oo nabadgeliyo iyo wax wada qabsi iyo walaalnimo ta aynu gudbanaa waa ta danteenu ku jirtaa waa taa inaynu gobolkeena waxaynu ka qabsanano raganimadeena iyo xiniyadeena ku gallo hadda adduunkii noloshii hore jiri jirtay lagu dhaqmi jiray reerahan ku dhaqmi jirtay way fashishay xoolo nool baynu lahayno xoolihii noolaa way fashileen meel dambe la sii taagaa ma jirto meel walba berkad baa laga qoday waxa weeye dhaqaalaha hadda la abuuraa waa wax soo saar iyo nolosha hadda taallaa weeye gobollada meelaha ugu qanisan wax soo saarka leenahay waxaynu isku qancinaa Hargeysa iyana waa dhul wax soo saar baynu nidhahnaa innaguna waxaynu qaadnaa inaynan dhul wax soo saar lahayn marka la yidhaaho xaaxi iyo beerata iyo ilaa waqtigii Cabdullaah Xasan iyo ka hor meelihii dadku ku noolaabay haayeen beer magaalada la yahay hadda inoo jirta 20 kiiloomitir waxay ahayd haddii rabbi xugmaya meesha ugu ballaaran
biyaha togdheer ay ku faafaan ilaa ay ku filaan halka doontaba aad ka beeran karto wax ka dhigi karto weey marka akhyaaray kale ninkii iskay soo agtaagi waxaan ka bedelay hadalka inaynu xisaabtan ilaa halka soo ahaa iyo doorashooyinkii xaajada inaynu ka sokaysiino wixii la soo maro dhan la soo mar inaynu ka bilowno maxaa maanta inoo dan baan hadalka u soo celinayay inaan xisaabtan cidanba intay qaadato haddana iyaduna meeshii meel ka durugsan gaarsiiso intaa baan u soo kacay haddana wixii danaa salaadiinta hadlasa iyo waayeelka kale hadalka la siyaaba maxaa maanta inoo dana sheekada noqoto والسلام عليكم ورحمة الله.